Mary Johnson adiga miya? ها maxaa dhacay? warqadan maxkamaday ka timid alaabtaada qaada ka soo bax guriga. maya walaal waxaan moodayay ilaa 5 galabnimo inaan haysto waxaan oo dhan keligay baa samaynahaya. taas aday ku jirtaa ka soo bax gurigan waa la gatay haddii kala xabsi baad aadaysaa. walaalow way fahan odagiina wuu naga tegay waxba noogama tegin meelan aada ma garanahayo walaalo waqti yar isii. fiiri abbaaye dhibka adiga ku haysta aniga shuqul kuma lihi adiga waaye ka soo bax guriga. waa codsi caawi asxaan ii samee. qofka keliya ku caawin kara waa qofkii gurigan gatay kuma caawin kara aniga mar kalaan kuugu celinayaa alaabtaada qaado ka soo bax guriga. officer raalli ahow iska daana halkan ka sii wadahaye abbaaye wax dhiba ma jiraan wax kasta caadi bay noqonayaan. warniyaha anigu kuma garanayo gabadhan maxkamad baa guriga ka saartay dadka kaliya oo bedeli karana waa dadkii guriga iska lahaa. officer ayada iska leh waa tan warqadii lahaanshaha maxaa ku qoran Mary Johnson. ma fahmin aniga sheekadan. gurigan asagoo la xaraashahay anaa gatay anaa magaceeda ku qoray ayadaana iska leh. waxaan ka ogahay male arrinta adinka lee waaye. waaw waxaan aamini karaa ma aha waxaan dhahaa ma garanahayo laakiinse maxaad u samaysood ka wadde imaba taqaanide. eeg u fiirso markii aan yaraa oon carruurta ahaa qof aana aqoonin baa ii caawiyey oo noloshaydii wax ka beddelay. iga raalli ahaada inaa idin dhiba ma jecli dhib baa i hayee fadlan i caawiya. maxaa kugu dhacay? maya meelaan aada ma garanahayo lacagaan cunto ku gata ma haysto fadlan waxaan sameeya ma garanahaye i caawiya. maskiin aaway waalidkaagii maxaa ku dhacay? abbiyo hooyo labadoodiiba way dhinteen keligay baan ahay qof kalena ma haysto. iga raalli ahow aad baan uga xumahay dhibka ku haysta bal sug inaan waxaya fiiriye. naa maxaa samaynaysaa annakaba taayadaana haysatee soo bax qof kasta ma caawin karneenna keen. waa ilmo yar lacagtaan baan wax ka siinahayaa. lacagtaa bixinaysa waa kiradii gurigii naa cunugan wuxuu yahay maba naqaaneenna keen mindhaa darooga iyo waxbuu rabaa inuu ku gatee. hadduu run sheegahaya ka warran soo inaan caawinna ma aha. waxaad samaynaysid wax la qaadan kara ma aha waxaan eegi karana ma aha. waa adduun dhib badan maxaanba u kala reebahayaa oo iska wada qaado waxaan qiyaasahayaa inay ku caawin doonto. aad baad u mahadsan tahay maxaa waxaanoo dhan ii siinaysaa ima taqaanide. markaa qof caawisidooda wax siisid wax ka badan baa lagu siin doonaa adigana markaagaa lagu caawin doonaa. laakiin see kuugu gudi doonaa? ma baahnid inaad ii guddid iga ballanqaad dhibkan haddaa ka baxdid ood aragtid qof caawin u baahan inaadan dhaafin. waa kaa ballan qaaday. hooyaday waxay oran jirtay mar kasta Mary Johnsoney tanu waa falxad waa nasiiba ha dhigin adigana nasiibkaagu ha wacanaado. markaan weynaaday waxaan ku biiray beec mushtarka guryaha dadka guryaha gadaa noqday saysan guri la'aan iigu dhicin. waxaa noqday dadka ugu sarreeya oo guryaha iibiya ama iibsada anigoo maalin eegahaya liiska guryaha la xaraashahayo baa waxaa iiga soo dhex baxay magacaana hilmaamin weligay waa magicii ahaa Mary Johnson waa magicii beddelay noloshayda forever. wiilkaas ayaan ahay ma hilmaamo hadalkaad igu tiri eraygii ahaa caawi kuwa caawinta u baahan waxaad bixisay wax ka badan baad heli doontaae. dareenkayga lama soo koobi karo hadalkii baa igu noqday aad ayaa u mahadsan tahay ilama aha tan inaan kuu gudi karo. Mary iga ballanqaad
markaa dhibkaan iyo strugglekan ka baxdid markuu wakhtigaagu kuu wacnaado ood lugahaaga ku istaagtid inaad caawin doontid qof kaloo caawin u baahan